Basaaskii ugu yaabka badnaa ee Qasa. Qiso dhab ah oo ku salaysan dhacdooyin run ah. Qasa waa dhul yar, balse culays weyn ayaa saaran. Duqeymo, godoon, sirdoon iyo basaasiin isdhex maraya. Dadka caadiga ah waxay arkaan keliya rasaas iyo burbur, balse hoosta waxaa ka socota dagaal ka halis badan kan hubka, dagaalka sirdoonka. Qisadeennu waxay ku saabsan tahay nin la oran jiray Khaalid al-Masri, magac la beddelay sababo amni awgood, balse qisadiisu waa mid dhab ah oo la mid ah dhacdooyin si rasmi ah loo xaqiijiyey. Cutubka 1 Carruurnimo iyo rajo. Khaalid wuxuu ku dhashay Qasa sanadkii 1983 xilli ay jireen iska horimaadyo culus. Aabbihii wuxuu ahaa kalluumaysato, hooyadiina waxay ka shaqayn jirtay guri. Nolol adag balse sharaf leh. Khaalid wuxuu ahaa wiil caqli badan. Wuxuu si fudud u bartay Carabi, Cibraani iyo Ingiriis. Wuxuu jeclaa raadiyaha iyo qalabka elektarooniga. Wuxuu ahaa qof aamusan, daawanaya wax kasta. Laakiin nolosha Qasa mar walba way beddeshaa qofka. Cutubka 2 Dhacdo beddeshay nolosha. Markii uu Khaalid jiray 7 sano, aabbihii waxaa lagu dilay duqayn badda ka dhacday. Qoyska ayaa burburay, Khaalidna wuxuu noqday tiirkii reerka. Sannado kadib, isagoo isku dayaya inuu shaqo helo, ayuu maray xadka Erez, halkaas oo sirdoonka Israa'iil Shin Bet ay markii ugu horreysay indhaha ku dhigeen. Ma aysan qabsan si xoog ah. Waxay u adeegsadeen lacag, ballanqaad shaqo, daaweyn hooyadii u baahanayd, iyo hal hanjabaad oo keliya: haddii aadan nala shaqayn, walaalkaa wuu dhibtoon doonaa. Halkaas ayay noloshiisu ka leexatay jidkii saxda ahaa. Cutubka 3 Tababarka basaaska. Khaalid si qarsoodi ah ayaa loo tababaray. Sida loo diro xog sir ah, SMS iyo signals qarsoon. Sida loo sawiro meelaha la beegsanayo. Sida loo garto hogaamiyayaasha iska caabinta. Sida loo noqdo nin caadi ah. Waxaa lagu amray: ha noqon geesi, ha noqon mid caan ah. Noqo hoos. Muddo 8 sano ah, Khaalid wuxuu ahaa qof masaajidka ka muuqda, qof dadka caawiya, qof aan cidna ka shakin. Laakiin isla wakhtigaas, wuxuu gudbinayay xog sababatay dilal, qabashooyin iyo duqeymo. Cutubka 4 Damiirka oo toosa. Markii guri ay deganaayeen carruur yar la duqeeyey, Khaalid wuxuu ogaaday: anigaa xogta bixiyey. Habeenno ayuu hurdo waayey. Wuxuu bilaabay cabsi. Cod walba wuu ka baqi jiray. Wuxuu ka shakiyey qof walba. Wuxuu dareemay inuu ku jiro xabsi aan gidaar lahayn. Wuxuu isku dayay inuu ka baxo hawsha, balse sirdoonka ayaa ku yidhi: waxaad naga mid tahay ilaa aad dhimato. Cutubka 5 La soo bandhigidda sirta. Sirdoonka Qasa iska caabinta gudaha ayaa bilaabay baaritaan ballaaran. Hal qalad oo Khaalid galay, telefoon labaad oo uu kariyey, ayaa fashiliyey wax walba. Wuxuu qirtay sida loo qortay, cidda uu la xiriiri jiray, xogtii uu gudbiyey. Qiraalkiisa wuxuu sababay in la badbaadiyo 100 qof kadib. Cutubka 6 Dhammaadka. Khaalid waxaa lagu xukumay xukun dil ah, sida ku cad sharciga dagaalka iyo khiyaano qaran. Habeenkii ugu dambeeyey wuxuu yidhi: ma ihi geesi, mana ihi shaydaan. Waxaan ahay nin lagu jebiyey duruufo. Subaxdii xigtay, qisadu way dhammaatay, balse casharku wuu haray. Casharka qisada. Basaasintu waa dagaal maskaxeed. Cadowgu mar walba hub ma isticmaalo. Cadaadis, saboolnimo iyo cabsi ayaa ah hubka ugu halista badan. Qasa gudaheeda, qof walba wuxuu wataa sheeko qarsoon. Asxaabta sharafta badan wanala ku dhegan yahay taga sirjinka ku qor Baxar Nahri Subsribe Nososar. Mahadsanid dhammaantiin.